sida Sweden ku noqotay dal horumaray. Sweden waa dal ka mid ah Scandinavian-ka oo taariikh ahaan aad isu beddelay. Qarnigii dhexe, kiniisadda ayaa ahayd awoodda ugu weyn. Kadibna boqortooyada ayaa xoog yeelatay, waxayna Sweden noqotay dal awood leh oo mararka qaar saamayn ku yeeshay Yurub. Ilaa qarnigii 18aad, Sweden waxay ahayd dal beeraley ah, dadka badankii waxay ku nooleeyeen beeraha. Markii warshaduhu soo baxeen, dalka si degdeg ah ayuu isu beddelay. Magaalooyin waaweyn ayaa dhismay, Swedenna waxay noqotay dal leh warshado horumarsan. Maanta Sweden waa dal dimuqraadi ah, waxayna caan ku tahay waxbarashada, sinaanta, hal-abuurka iyo nolol wanaagsan. Sidee bay Sweden ku noqotay dal hodan ah? Dad badan ayaa isweydiinaya, sidee ayuu dal yar oo aan lahayn saliid ama dahab u noqday mid ka mid ah dalalka ugu qanisan dunida? Jawaabtu waa dhowr sababood oo muhiim ah. Waxbarasho iyo aqoon tayo leh. Wax walba waxay ka bilaabmeen waxbarashadaha. Sweden waxay hore u bilowday waxbarashadaha qarnigii 18aad. Carruurta oo dhana waxay noqdeen dad tayo leh, helayna daryeel iyo waxbarasho wanaagsan oo aad tayo badan. Tani waxay abuurtay bulsho aqoon sare leh, taas oo keentay in ay abuurmaan shirkado waaweyn sida Ericsson, Volvo, Saab, Aga, Telia iyo Scania. Sweden waxay dhoofisaa farsamo iyo fikrado iyo aqoon cilmi, ma ahayn keliya khayraad dabiici ah. Horumar warshadeed iyo hal-abuur. Aqoontu waxay u gogol xaadhay warshado xooggan oo ku dhisan bir, mashiinno, gaadiid iyo isgaarsiin. Khayraadka oo si caqli leh loo isticmaalo. Sweden waxay lahayd khayraad yar, laakiin si wanaagsan ayay u maamushay. Halkii ay birta iyo alwaaxda sidan u dhoofin lahayd, waxay u beddeshay alaabo qiimo badan leh. Nabad iyo dhexdhexaadnimo. Sweden dagaal ma gelin in ka badan 200 sano. Intii Yurub inteeda badan ay dagaaladii sokeeye ku burburaayeen, Sweden nabad bay ahayd, ku dhisatayna dhaqaalaheeda. Nabaddu waxay siisay fursad qorshe fog leh iyo horumar in uu waddanku ku tilaabsado. Iskaashi shaqo bixiyaasha, shaqaalaha iyo dowladda. Sweden waxay samaysay nidaam loo yaqaan modelka Swedishka oo ku dhisan iskaashi si looga fogaado khilaaf. Tani waxay keentay shaqo xasiloon, wax soo saar sare oo tayo leh iyo adeeg bulsho oo fiican. Canshuurta oo si wanaagsan loo daryeelo. Waxay bixiyaan waxbarasho bilaash ah, cunto lacag la'aan, daryeel caafimaad oo bilaash, amniga bulshada, teknoolojiyada iyo agabka dhaqaalaha. Tani waxay abuurtay dad caafimaad qaba, wax ku ool ah, oo shaqada ku dadaala. Dhoofinta iyo magaca fiican ee Sweden. Wax walba waxay keeneen dhaqaale ku dhisan dhoofinta. Shirkadaha Swedishka ayaa noqday kuwa dunida ka horeeya ama ka hormaray. Dimuqraadiyad xooggan iyo musuqmaasuq yar. Sweden waxay leedahay dowlad hufan oo aan ku takrifalin dhaqaalaha waddanka. Dadku waxay ku kalsoon yihiin nidaamka dowladooda. Gunaanad. Sidaa daraadeed, Sweden wuxuu noqday dal hodan ah, ma ahan sababtoo ah wuxuu leeyahay khayraad badan, waase waxbarasho bilaash ah oo tayo leh, hal abuur wanaagsan, nabadgelyo, iskaashi, cadaalad. Sweden oo ka mamnuuc ah corruption ama isdabamarin. Tani ayaa waxay u horseeday waddankani yar ee Sweden in uu noqdo waddan ka muuqda ama laga yaqaan waddamada adduunka oo dhan. mahadsanid daawashadaada. Fadlan ha hilmaamin inaad like iyo subscribe dhahdo si aad ula socoto muuqaalo kale oo faa'iido leh. Ku dhufo badhanka oo nagu biir maanta.